الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ugu horeyn maanta way bishu 12 bishii labaad 2017 ka xisbi ahaan waxaan shirka jihaad u qabanay waxa weeyaan inaanu runtii arrimaha maalmihii dawlad ka taagnaa wadanka aan heshiiskii ahaa inaanu ku xisbi ahaan ay nala ahayd aanu niraahno marka koobaad runtii waanu soo dhaweynaynaa heshiis walba oo dalkan iyo dadkan u dan ah oo runtii inoo soo jiidaya dunida inoo soo jiidaya saaxiibo cusub iyo muxuu ahaayay xiriir wanaagsan oo cusub ka xisbi cudhaan waanu soo dhaweynaynaa waanu taageeraynaa heshiis kasta oo dalkan iyo dadkan iyo ummadan runtii horumar iyo baraare u horseedaya waa talabaade arrintan imaaraadka iyo saldhiga runtii bulshada reer Somaliland in badanna way ku kala aragti duwan tahay waana arrin national issues oo u baahan hadiiba ay xukuumaddu ay heshiis la soo gashay in lala tashado axsaabta qaranka iyo institutions qaranka uu leeyahay laga tashado oo laga wada arrimiyo weeyaan لأنه وحوين وهشيسكي نقول عصلا أم بمحوها هاي أينو ده مسير كأمدا كترشوي ويا مركا وحي هاد إن لا تشهده حسابته أو وحلقوا وديو وحي كإيمان كرا وحي فائدة ونولي هاي يو وحي أينو دن إنه أنت بقى إن لقوا أرين صدو أو لقوا تشهده أي رنتي هاي مركا تاس هرت ميدعين تاس ميدعين الصومالي ده راح يكون مع هذا ننهي لاب حمي إنه wax qarsanayo baad moodaa marka ana waxaan u aragnaa heshiiskan horena waxna loogama weydiin xisbi ahaan dawladuna intay nala soo tashatay axsaabta mucaaradka waxba kama weydiinin maanta markii aan golaha tagnayna runtii wax la qaybiyay nuqula 15 ka qodob ka kooban waliba waxa la yidhi 15 ka qodob markaad ansixisaan golayaasha marka ansixiyaan ka bacdi ayaa heshiiskii saxda ahaana la galaya marka anagu waxaan u aragnaa 15 ka qodob de hortu wax heshiis soo cad oo imika la soo galay dawladii imaaraadka inuu hor yaalo oo maanta in la hor keenay meeshii ma yaalaan waa 15 ka qodob 15 ka qodobna de qaar waa la oran karaa qaar dalka u fiican way jiraan laakiin waxa u baahnayd de in la bayaamiyo oo ummadda loo bayaamiyo oo runtii muxuu ahaayay la faahfaahiyaaba u baahnayd imikana ma cadda waxa laga xusi karaa 20 sano ayaa laga kiriyay oo dekada muxuu ahaayay saldhiga laga kiriyay ayaa laga xusi karaa waxa runtii iyaduna ku jirta qodobka 15aad oo qeexaya labada dhinac hadii mid kamid uu heshiiska burin kari waayo in magaranaysa heshiisku uu buriyo marka waxaan u aragnaa arrintan in arrin lagu degdegay ay tahay arrin lagu degdegay in ay tahay baan u aragnaa anagu xisbi ahaan de hadal waan oran karnaa oo de waan hadli karnaa laakiin de golayaasha ayaa ansixinteedii iyo meelmarintii diiditaankeeda runtii xaq u leh marka wixii saaka golaha ka dhacayna wax fiican ma yahay jujuub bay ahayd caburun bay ahayd xildhibaano ka turjumayay rabitaanka shacbigooda in la golaha laga saaro oo la tuqaantuqiyo waliba la jirdilana ma ahayn waanu cambaareen xisbi cudhaan wixii maanta meesha ka dhacay waliba gudoomiyuhu golaha guurtu uu ka bareeray askartuna ay muxuu ahaayay ficilka sameynayeen xildhibaanada dareenkooda lagu ka turjumayay lagu jirdilayay lagu garaacayay lagu xidhayay lagu caburinayay waanu cambaareen xisbi ahaan wax fool xun oo wanaagsan wax fool xun oo ka dhacayna wax qurux badan meesha ka dhacayna umaanan arkay dalkan waa dal dimuqraadi xildhibaanaduna waxay ku turjumayaan waxa weeyaan oo dareenka shacbigooda ay ka turjumayaan in la caburiyo runtii ma ahayn hadii su'aal qabaan in la weydiiyaaba in loo ogolaadaaba hadii dad qoobaan in laga doodaaba wax lagu jujuubay oo muxuu ahaayay oo de askar loo adeegsado marka meeshii may oolin marka waanu cambaareenaa wixii maanta meesha ka dhacay biliskina waxa leenahay xisbiyada dhexbaad u tiin saddex xisbi dhexbaad u tiin mid brito la qabsan Allahu a'lam waxaan u soo joogay anigu shalay bay had markii Siinaay lagu tuqaan tuqinay golaha guurti ee askartu ka saarisay
wixii shay lagu sameeyay maanta in xukuumaddu hadana axsaabta mucaaradka iyo xildhibaanada la soo doortay ku sameeyso de runtii waa arrin foolxun kii maanta markuu mucaaradka yahayna muxuu ahaaye bulshada u naxay markuu meesha kursi ku fadhiisana wuxuu doono ku sameeynaya de muxuu ahaaye arrin foolxun arrin wanaagsan maaha marka waxaan qabnaa saxaafadda la soo xirxidhayna runtii waanu cambaareynaa hal si daayo muxuu ahaaye biliiskuna waa in u dhaxeeyaan dadka iyo axsaabta waa in u dhaxeeyaan oo xisbiyada xasanad gooniye leeyihiin wali mas'uuliyiinta axsaabtu waa in u dhaxeeyaan oo aanay muxuu ahaaye de wixii xumaan keenaya waa inaanay muxuu ahaaye de ka digtoonaadaan runtii ummadan de ilaahay baa abuuray halkana buqcadda ilaahay baa nagu abuuray waqtiguna uu ordaya maalinba de kii dhaaminaya u talinaya u arriminaya shacbiga waxaan leeyahay dareenkiina inaad muujisaan waa muhiim dareenkiina inaad muujisaan waa muhiim arrintana shacbigu ku kala aragti duwan yahay de marka waxaan qabaa de haddiiba imika u codeeyeen de kullow wixii u codeeyeen waa 15 qodob heshiis ma ahayn de in la sugo markaa wixii tala dambe la yeelayo laga watashado si mugle loo eego waa masiirka ummadda waxaniye ayaan runtii anagu aan qabnaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.